Assalaamu calaykum. Waa barnaamijkeenii ma ogtahay qaybtiisii labaad. Haddaba si aan muuqaalkeenan hore ugu soconno, fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, sina sheer garee muuqaalka si uu gaadho saaxiibo kale oo xiisaynaya inay warbixinaha noocan ogaadaan. Ma ogtahay in kaneecadu door bido inay qaniinto dadka maqaarka cad leh in ka badan kuwa maqaarka madow leh? Ma ogtahay in waddanka Uganda aanu isbedelin wakhtiga afurka bisha Ramadaan hadday xagaa gasho iyo hadday jiilaal gashaba? Maxaa yeelay waxa uu dhacaa waddankaasi dhulbadhaha waxaana isla eg habeenka iyo maalinta. Ma ogtahay in hurdo la'aanta ama hurdo yaridu ay saamayso qosolka qofka iyada oo ka dhigta mid ku qosla xataa waxyaabaha aan keensanayn qosolka? Ma ogtahay in indhaha bani'aadamku ay kala baxaan oo ay fidaan in ka badan boqolkiiba 45 marka uu qofku la kulmo wax ka farxiya? Ma ogtahay in tufaaxu ka saamayn badan yahay kofeega marka loo eego qofka oo uu ka dhigo mid soo jeeda oo feejigan? Ma ogtahay daawade haddii aad si awood badan u hindhisto inay dilaacin karto feedhahaaga? Sidoo kale qofku ma hindhisi karo isagoo indhaha kala haya. Hadday taasi dhici lahayd way qarxi lahaayeen. Waxaa kaloo ay sababi kartaa in xididada dhiigga madaxa iyo qoortu ay qarxaan. Taasina waxay dhacdaa marka uu qofku isku dayo inuu xakameeyo hindhisada. Ma ogtahay in caanaha naaska hooyada laga helayo ilaa 700 oo nooc oo bakteeriya ah maadaama oo jidhka bani'aadamka ay ka buuxaan bakteeriyo, balse bakteeriyadaasi waa mid aan wax dhibaato ah lahayn, taa cagsigeeda faa'iido u leh jidhka. Ma ogtahay in bani'aadamku hal bil noolaan karo cunto la'aan, laakiin biyo la'aanta aanu noolaan karin wax ka badan 1 toddobaad? Ma ogtahay in celceliska cimriga gorgorku uu yahay 100 sannadood, micnaha 1 qarni, balse noloshiisa dheer ay soo gabagabowdo sababo la xidhiidha cudurro ku dhaca wakhtigaasi, isla markaana uu isagu naftiisa gooyo? Ma ogtahay in celceliska cimriga bisaduhu uu yahay 12 ilaa 15 sannadood,